السلام عليكم موضوعنا wanaagsan meel kasta caalamka joogtaan ku soo dhawaada mowduucan kooban waxaan ka hadli doonaa saddex hab oo qofku uu digeeri karo sarana uu qaadi karo caafimaadka kaliyaha marka laga hadlayo kaliyaha waxay qabtaan shaqooyin muhiim ah guud ahaan jirka waxaana ka saaraan sumaha jirka kuwaasoo soo raaca marka cuntada ay soo kale biyaha qofku uu isticmaalo iyadoo lagu saarayo habka loo yaqaano kaadida taasoo shaqada jirku uu qabto habka loo yaqaano kaadi mareenka ama habdhiska kaadi mareenka hadba sidii markaa u fahamsan haddaba mowduucan muhiimka inta bilaabay waxaan ka codsanayaa inaad kanaalka subscribe sidoo kalena inaad filoda noo taabato TikTok iyo sidoo kale baraha kale aan bulshada ku leenahay sida Facebook iyo Instagram mahadsanid habka koowaad marka laga hadlayo habka loo daryeelo kaliyaha waxaa ka mid ah qofku inuu cabo biyo nadiif isla markaana biyo aad u badan kuwaas oo qayb ka qaadanaya in jirka laga saaro sumaha sidoo kale waxyaabaha haraadiga ee soo raaca dhiigga taasoo ka dhigan in kaliyaha noqonayaan kuwo caafimaad qaba waxaana qofka da'da weyn loo soo jeedinaya haddii xaaladdiisa caafimaad ay u saamaxayso inuu cabo 6 ilaa 8 koob oo biyo ah maalintii si kale haddaan dhigno waxaa la sheegaa in qofku cabbi karo 2 litir oo biyo ah maalintii ugu yaraan qodobka labaad in lagu daryeeli karo sankaan sare lagu qaadi karo caafimaadka kaliyaha waxaa yahay qofku ku fogaado cunitaanka sonkorta iyo milixda ama cusbada badan taasoo ka dhigan inay dhaawici karaan kaliyihiisa taasina waxay qofku horseedi kartaa in shaqadii kaliyuhu meesha ay ka baxaan ama uu dhaawac soo gaaro taasoo qofka halis ku ah caafimaadkiisa guud ahaan ugu dambeyntii qodobka saddexaad waxa uu yahay qofku hadda jeer inuu sameeyo baaritaan joogtaan si loo hubiyo xaaladda guud ee kaliyihiisa halka ay marayaan taasoo inta badan qofka laga qaadayo kaadi iyo waxa loo yaqaano dhiig kuwaasna waxay qayb ka qaadanayaan in si sax ah loo ogaado heerka caafimaad ee marka kaliyihiisu halka ay marayaan taasoo ka dhigan haddii qofku uu leeyahay xanuunada kaliyaha ku dhaca in xilli hore la ogaado waxaana inta badan la soo jeediyaa haddii qofka qoyskiisu ay leeyihiin xanuunada ku dhaca kaliyaha inay wanaagsantahay markasta in la socdo markaa waxa loo yaqaano xaaladda kaliyihiisa guud ahaan waxaa kale oo jira talooyin muhiim ah oo loo soo jeedinayo qofka hadda jeer inuu ka fogaado isticmaalka dawooyinka xanuun baabiyaasha gaar ahaan waxaa la xusay dawada loo yaqaano ibuprofen dawadaas oo markaa dhaawici karta habdhiska kaadi mareenka gaar ahaan kaliyaha hadda jeer qofka waxaa loo soo jeediyaa ka hor isticmaalkeeda in la tashado khabiir caafimaad tani kula dambe nabadgelyo